saaxiibayaal waa anigoo ah Shubaal Media oo jeclaystay inaan idinla wadaago in yar oo magaalada Hamburg xaaladeeda ah Hamburg ee dalka Jarmalka. magaaladan oo ah magaalo taariikhi ah oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkan. waxaa ka dhacaya oo isugu waqtiyo hore ma sanadahan dambe aanan ka dhici jirin lagu arkay oo siyaada ah oo iska fadhiya meel walba guryihii iyo baabuurtii wadooyinkii ku fariistay oo aanba inuu soo kordho mooyaane waxba iska dhimeen iyadoo xaaladii koronihii uu uga soo daray oo lagu jira lockdown. labada xaaladood ayaa magaaladii Hamburg isugu darsamay. waxaad moodaa meel lama degaan ah oo laga guuray oo saxaro ah, guryo inay iska dhisayeen meelaha aad moodo filmaanta horarka in lagu matalo cabsida ama meel colaadi ka dhacday oo lagu kala baxay oo qofba aadan arkin wax dhaqaaqay qof gurigiisa ku jira mooyaane iyo qof meel yar oo shaqo uga socoto oo jooga mooyaane wax kale oo bini aadan ah indhaha u qaban maayaan. guryaha saqafyadooda barafka sida u saaran yahay, laamigu daadsan yahay. weliba haddeer xoogaa maanta waaba dhaamaa sidii hore xoogaa. waxaad moodaa in hawadu maanta sidaan ku yar furan tahay, xoogaa nasteexa waad moodaa in lagu jiro. marka wallaahi dadka ilaahay amarkii nimba dhul ilaahay nimcaha buu na siiyey oo aanu leenahay. hase ahaatee nasiib darro ilaahay dhulkeennii inaan nabadaysanno oo dadku gacmaha isqabsadaan oo la midoobo waa la diiday. waa laga jeclaystay in barafka iyo loo soo cararo dhulka sidaas. aad mooday in waa hore lagu kala guuray, wax dhaqaaqa ayan jirin oo qofka hadduu tallaabo yar uu qaado aad moodaysid badee in sida ay tahay saasay tahay. barafkan dad fara badan baa ku jajaba xilliyada qaarkood. dad fara badan baa xilligan oo kale meeluhu wuxuu ka noqonayaa sidii dhaladii oo kale. marka uu noqdo qofku wuxuu moodayaa meel dhala ah ama lagu ku istaagaya uu la siibanayaa. hadduu la siibtana horuu ka jabayaa. dhulka qabowga sidaana dadka inta badan calcium kuwa uu ka dhamaadaa oo waxa uu noqdaa eber.